رئيس الوزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa xalay waxa ay gaareen magaalada Geneva ee dalka Switzerland iyadoo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay wafdiga ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa Geneva uga qayb galaya kulamo looga hadlayo arrimaha shaqo la'aanta dhalinyarada haweenka iyo xuquuqul insaanka inta uu joogo Geneva ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu hadal ka jeedinayaa golaha xuquuqul insaanka ee la filayo inuu dalkaasi ka furmo sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee dawladda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac waxaan maanta halkan ku nimay wafdi uu hogaaminayo mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubno golaha wasiirada ka tirsanay howlwadana kale kulan hawleed qaadan doona maalin ayaan ku joogi doona magaalada Geneva oo fadhiisin u ah hay'ada waaweyn oo UN iyo hay'ada kaleba ra'iisul wasaaruhu wuxuu kulan la yeelan doonaa guddiga xuquuqul insaanka iyo hay'ada kala duwan oo naga taageera ama ka caawiya dawladda iyo dadka Soomaaliyeed aaga kala duwan oo dawladnimada iyo wax soo saarka ku lug leh kulankaasi maalin ayuu qaadan doonaa waxayna la xiriiraan hawlaha dawladnimada iyo dib-u-eegleelidda hay'adaha dawladda Soomaaliyeed kala duwan insha Allah ta'ala wixii dambe tafaasiilana berri markay shiro ku dhamaadaan baan bixin doonaa maasantii Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Sam News TV magaalada Muqdisho